munaasabad lagu maamuusayay maalinta caalamiga ee qaxootiga aduunka kuna beegan 20 bisha Juun ee sanadan 2019 ahna maalin caalamka oo dhan maalintan oo kale si weyn looga xuso ayaa munaasabad maalintan lagu xuseeyay waxa lagu qabtay maanta xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab. munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen Israa'iil ka kala socday hay'adaha samafalka ee ka howlgala xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab mas'uuliyiin matalayay dowladda dalkani Kenya waaxdeeda arrimaha qaxootiga iyo waliba sidoo kale mas'uuliyiin ka socotay dowlad goboleedka Garissa County iyo dowladda dhexe ee dalkani Kenya iyo sidoo kale dadka deegaanka. waxaa sidoo kale munaasabadan ku sugnaa dadka qaxootiga. munaasabadan intii ay socotay ayaa waxa lagu soo bandhigay dhibaatada ay qaxootinimadu leedahay sidoo kale tan ardayda wax ka baratay iskuulada kala duwan ee ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab ayaa waxay munaasabada ku soo bandhigeen qaxootiga dhibaatooyinka laga dhaxlo iyo waliba sidoo kaleeto in wadankoodii ay u baahan yihiin inay dib ugu laabtaan isla markaana ay u hiloobeen wadankooda halka daayar fara badan oo ku dhalatay xerooyinkan oo goobta xafladda ka soo bandhigay erayo kala duwan ayaguna markaasi dareenkooda ay ku cabireen qaxootinimada ay ku jiraan. intii ay munaasabada socotay ayaa sidoo kale waxa ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiintii matalayay hay'adaha samafalka ee ka howlgala xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab iyo waliba sidoo kale guddiga qaxootiga iyo mas'uuliyiin matalaya waaxda arrimaha qaxootiga ee dalka Kenya. haddaba munaasabadii maanta lagu qabtay xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab ee loogu dabaaldegayay maalinta qaxootiga aduunka ayaa waxay u dhacday sida tan. It is my pleasure to address this distinguished gathering and acknowledge that the 2019 World Refugee Day is commemorable at a time when the UN Refugee Agency has reported a record of 68.5 million forcibly displaced people worldwide. maanta wuxuu dhahay waxaan meeshaan ayada ku faraxsanahay inaan ka hadlo oo xusno maalinkii qaxootiga aduunka iyadoo UNHCR iyo qaramada midoobay reportka ay sheegeen in 6 milyan oo ruux ay aragtacyaal yihiin. waqtiga la xuso maalinkii 19aad maalinka qaxootiga. This Refugee Day is established to recognize the resilience of the community and the supporters received from the host community and host government. maalinkan waxaa loo asaasay buu dhahay in la xuso qaxootiga iyo taageerada ay bixiyaan dadka muxuu dhahay deegaanka ah iyo hay'adaha. I heard very encouraging and good words from the local authority that the local administration is always provide continued support to the refugee community and also recognize that they have the same culture, the same values, the same community, so they are happy to host. waxaan aad ku faraxsanahay buu dhahay madaxdii deegaanka inta ka hadashay waxay ka hadalla aad u dhiirigeliyay ayay ka hadleen buu dhahay waxa ay ka dhawaajeen buu dhahay dadkan inay yihiin dad isku dhaqan ah isku diin ah oo mataqaanaa haddana cad kasta ay ka taageeraan haddana ay taageero dheeraada diyaar u yihiin. kama dhigacdow kuma bado shisheeyuhu gayigeenan hodanka ciideenan dahabka mahantiyo gumaysigu labadaada garab iyo geesiyada ku dortee kugu geefan adiguna eebbahay magaasiro inkastoo gafweyn dhacay gantaaladu ku sigayeen garkii kuu xidhnaayo laga gooye xarigii waa godob sokeeyiyo gacal kala caroode hagee gixin sarreeyo hagee lamin sarreeyo. dowladeenna wacaniyo danta guud ma eegnaa ciideena bihaaniyo dalagiyo beeraha wabiyada durdurayniyo deegaankeenna hodanka soda inama siinin deeqilaahay weeye madurduranacayo. waxaan idinku guubaalinhayaa in aad waxbarashada ku dadaashin. waxbarashada waa laba marka
maadi iyo diin. The group of refugees. The situation of refugees is getting worse and worse. kuwaasna wuxuu dhahay waa dadka qaxootiga oo xaaladooda maalin ka sii dambeysay ay soo xumaanayso. Now, why do I say this? Waxaan u leeyahay taas Because the number of refugees are the people displaced, as my colleague from DRC mentioned, is over 70 million today. maxaan saa u leeyahay u dhahay waa sababta ay tahay uu dhahay ninkii hay'adda DRC ka socday oo uu sheegay inay dadka maanta qaxootiga ah ama barakacayaasha ay ku dhaafayaan 70 milyan. And as our colleague from RAS also mentioned, the situation is getting worse. ninkii ka socday raasna wuxuu dhahay wuxuu noo sheegay in xaaladda sii xumaanayso. Today we see places where they used to open their doors to refugees. These places are getting closer and smaller. They are closing their doors. waxaan arki jirnay uu dhahay meelo dad badan oo qaxooti ah albaabada u furo oo maanta sii yaraanayo uu dhahay qaarkoodna albaabada u xirtay. in ka badan 20 sano oo ay dhisan yihiin xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab iyadoo xeradii ugu horeysay oo ifa la aasaasay sanadii 1991 markii dagaaladii sokeeye ay ka bilowdeen gudaha Soomaaliya ayaa waxa sanad walba maalintan oo kale waxa si weyn looga xusaa maalinta qaxootiga adduunka xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab. Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol TV-ga caalamiga ee Royal xeryaha qaxootiga ee Dadaab gobolka Waqooyi bari Kenya.